عليكم وين السلام دمانتين انت قلكم كجرت qof markuu hadlay hal ونمت وين السلام يا walaalin badan baan ku jiray muddo saacad gaaraysa cabdidaanta laba mid bas baa ku darsanaya mid waxa weeyaan qof hadalka wara maanaya waxaana ii muuqata rajif iyo aras ma lahayn bas Soomaalidu baar yaar cabdidaanta baar way kala cabdiraxiin waa lagu jeedaa mid labaadna waxa weeye walaaleen qolkaaga waxaan doonayaa inaan abaayo macmiil ka noqdo magacayga xasuuso oo la soo infeed karayo marka soo galo cabar waa la igu adkeeyaa dhowr topic doonayaan inaan ka hadlo waa ka tagay kadib markii la siin waayo fursadda هادر بابا فرصة قالي كفائي السلام عليكم وكفائي والله ما سنتي wax kale special idin ma sheegay waxaan sheegaya bas inaaneen in loo soo daayo dadku markay soo dhiibsadaan codsiga marar baa jirto tabiyo fiican laga hadlayo marka dadkana waa la kala baran karaa qofkii deeyaan wax qaladaad la yimaanay in la isaga soo daayo fiican qolka marka intiina maamulka waa idin ودنا سنتين دمانتين السلام عليكم ايوه ما سنت مدقل زكي بن حاجي صوصو قصو زكي بن حاجي عبد الدان marka walaal aniga زكي بن حاجي مقال ما جرى هلو ميكروفونka صفا كوريس صفا فودي قوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين aad baan idin wada سمع قالي على ورياشة فنانة ولا لها قبل iyo wiilal dhammaantiin aad baan idin wada salaamaya xaqiiqdii in badan baan dhageysanay dadka nuudka ka soo baxbaxana ma yihiin laakiin markaan arkay hadda barnaamijku inuu yaro wareeray ayaa waxaan isriix hal barnaamij oo aad u fiican oo waliba anfacaya meeshan laguna qaydeysan karo bal soo dhaxgalay barnaamijka wataa waxa weeyaan fanaaniinta wariyaal ku jiraan dhalinyaro badan qof aysan qalin la socotaa marka waxaan rabay inaan keensano barnaamij aan kula taliya tala maqaalan waayo waxa dhici karta qof walba inuu u baahnaa wax uu ka hadlo deedna lagala taliyo oo qofkii markuu hadlana saddex qof loo soo saaro saddexdaa qof la taliyaan deedna la dejiyo haddana qof kale loo saaro oo la taliyo barnaamijkaas rabay inaan keeno adna waa diiwaan عبد النور بالك ما يقانان مالنا ولا عبد النور ميغا هفورن قف markuu haday dhageyso markaagana qaado gabadha ku saabaayo barnaamijka waxa tiri gabadhu waxa soo jeedisay barnaamijka mawduuca aan kula taliyo ama ila taliyo marka waxa laga yaabaa qof waliba waxba ku taagan waxa oranaya waxa igu taagan igala taliya saddex qof baa loo soo saaray saddex qof baa la talin la wax badan baa lagu kala faa'iideysan la laakiin hadda haddii la yiraahdo haye wariyahan warayso waxa iska imanaysa su'aal aan bilaa xikmad su'aal aan caafimaad qabin yani waxa fiicnaan lahayd barnaamij aan wax ku kala faa'iidno aad baan idin salaamaya aniga waan qaatay aan barnaamijkaas ila tali ama aan kula taliyo aniga waan qaatay aan laftarkayga talo u baahan wax badan baan ka faa'iidaynaa okay cabdi daanto waliba barnaamijkaas anigu meel baan ka wadaa warniyahow ana talo ku sii cabdiyo iscadeynta iska dhaaf shuubaa ku dhashay waxaad baqaysaa macnaha nin ragaa tahay warqadaanimada joojiya ha mar dambe ha isbaqin naagaha isbaqeen ninka ma isbaqa tur qofka ma tuurtaan qofkaas aan shaxda farxad dacwada Allah ku salaamay baan kaaga qaaday walaal waa qofkee hadda wax hadlaya garan may baalkan qodha iyo xarada ilyarta isqabatay qofka hadlaya jalgo wada farxan qofka hadlaya magaciisa dhaqdhaqaaqaya asaas ku kala ogaagin ma magaciisa dhaqdhaqaaqaya mise wajigiisa walaal meesha uu saaray wax dhaqdhaqaaq واي عبد الدانتو واحد أذان كوكو بلابينا بل إن شاء الله بسم الله الكريم سؤال دقو وحي كوكو تاجن إلا قالت تمني ولا لا وحن شعلان لها إلا يسحش مايو ومود كل جودة ترو مركز كوسعبال أدود ما سنتين أنا وحن شعلان لها مركو رقف لا يجوهر مرسية لا يصدق قف لا يجوهر مرسية كذب لا يصوب صوبته أنا وحيابها عن أباهنا إن لا يقلت لي أدو بدينه صح maadaama dee wax badan ay maskaxdeeda ku jiraan oo iga dhex guuxayaan marka 1 2 3 baan ka soo dhigayaa saynan igana dheeraanin marka inta dadka kala hadlayaan waan sii nod gareysanaya waxaan u baahanahay in la gala taliyo
farxaan lagala raac talinaya loogu markaas horeysa cigaal okay ku horeysiinayna bal maxaan tiraxaa soo baxo maadaama basadiir iyo waxaa ku jiro waxa laga yaabaa wax in uu u baahan yahay mayku ku qaraacaya soo qof farxaan cigaal qofkii ku qorata okay cigaal soo baxo farxaan bayn ka horeysiinaynaa farxaan ku soco war aniga horta wax laygala taliyo oo hadda marakan miiska ii saaran ma jiraan nin kaliya waxa weeye bahalkan maanta soo galay dhowr qol baan madaxa la galay mid baa gabar layga siiyey dee gabadhii baan doonaya anigu reer anigu kalaab hoos idin ma kala aqaane talaftigeedu waa talaftigeedu tale u baahan tala lagaa siinaya ku soco haye wax kaloo aan bahalkan anu taladiisa aan marakan soo jeedin lahaa runtii ma garanayo dhalinyarada ee runtii u baahan in lala taliyo oo meesha ku jidho oo quruxda badan waxaan u malaynayaa oday reer miyiyaan ahay oo talada si fiican baa ula talin lahaayo waxoo la dhaqaajin lahaay bahalkan xoogaa inaan soo barbaranayaa moodaayo hadda ka hor baa waxaa la yimidhaa xoogaa sheekada idin dheereeye mid reer miyi reer iska reer miyiya odaga islaantu waxay iska siin jidhay oodkac subaxii moogtahay subaxa hore geed wiila marka joogi jirayoo waxaa la oran jiray warniyahow orod oo waxa weeye waxaraha kaxeeyo waxaraha ciif iyo orod maaragtaa ha soo taagnaanay orod dhowr jeer markuu waxaraha kaxeeyey oo ilqaroodda ka fiiriyey buu arkay odagaan keligiisa oodkaca iska cunaya maalinkii dambe waxaa la yidhi war maxaa waxariga u kaxayn weydaysiyo adeer waxariga ciifti waa barteen aaba iyo hooye naga daayo adeega wax naga siiya marka hadda waxariga ciifti waa barteen baan leeyahay oo bahalkan caawa waa bartay kolley si fiican baan u fahmay waa soo dhaweynaynaa dhalinyarada u baahan in lala taliyo intaasaana kaga baxaya waa mahadsantihin maasha allah tabaarak allah waxaan jeclaan lahaa hablaha asma oo kale iyo cabdidhaanta oo kale inaad daadihisaan maadaama anigu mujtamaca ka mid ahay on muudka idin galo okay waa mahadsan tahay taladaad soo jeedisay waxaan rajaynayaa dad badana wax ku taagan yihiin inay hadli doonaan islamarkaana talooyin fiican la siin doono qofkii wax ku taagan yihiin fadlan maaga soo qanac okay ana ma hadli karaa hal mar hore u gala boowe horta macnaa dhammaan inta aqaarta meeshaan ku jirto horta aad aan u salaamayaa anigoo taaga ma fahanti qofka aqoon ilaa asma muud gal halo malii maqlaa ku dhaho waa iska wadaysaa adiga cid sheekada kaa guraysa okay marka horta dhammaantiin aadaan ii salaamayaa dhowr mar maarka baalka horta waa ku cusbaasay la sheegay farxaan yaani hal mar iyo bilaal bulshada hal mar aan ula soo dejin ma fahanteen marka horta dhammaan qofka macnaa inta ku jirtin waa dad akhyaar ah horta aad iyo aad aan u salaamayaa haddana waxaan leeyahay magaceygana waa anuuseega qofka i yaqaana ay yaqaan inta i yaqaanin haddaa isbaraya ma fahanteen marka horta aniga tala iyo waxaas uma soo gelin just waxaa soo galay meesha uhay inaan dhegeysto ama wixii markaas ra'yi aan qabo inaan kusoo bandhigo marka aad iyo aad aan ii salaamaya inta qaar ku jirtin waa sii salaamaya zaki bin xaaji ku soo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin in si fiican la ii maqlaan rajaynayaa aad iyo aad waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta dhammaan meeshaan wada timid inta magaca iyo muuqaalka ummadda soomaaliyeed ku leh iyo shacabka hoose ee dhegeysanaya waxaa moodaa asxaabta salaamayaa waxaan odhan soo jeedin lahaa anigu inaynu barnaamijka qodob yeelo aan qodob ka hadlo si uu barnaamijka inagu ballaadho dadku dhegeysan hebel baa hebel salaamay iyo hebel baa la talinaya iyo sida meesha ilaahay tahay min ka hadalna marka meesha qodob inooga dhigo hala ballaadhiyo hala doodo waxa la kala faa'iisto kusoo zaki bin xaaji aad baa mahadsantahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meeshaan isugu timid waan salaamayaa inta hoggaanku u ahay magacay muuqale meeshaan saaran sidoo kale walaalkii barnaamijka ku cusub applicationka ee farxaan aad baan isagana u salaamayaa barnaamijka talada haddaan ku socdo ee gabadha walaasheena soo bandhigtay fikirkaas inaan dhaqaajino aan isku dayno oo fikirkaas aan bal wax ka faa'iidno oo gabadha walaasheena noo soo bandhigtay waxaan codsan lahaa dad 5 qof gaaraya aan ka badnayn si aan tala kale u keensano in barnaamijkan uu cabdidhaanta meega siiyo 5taas qof inay fikirkooda mataqaanaa la wadaagaan ama 6 qof application kan waa la wada isticmaalaa Soomaalida meel walba joogaan marka waxaa jirta dad bulshada magac ku leh iyo dad aan magac ku lahayn laakiin si fikrada ay ku jiraan aqliyad ay ku jiraan wax laga faa'iidi lahaa waxa moodaa dadkaas marka ay meega soo fuulaan qaybta hoose inaysan soo dhaafeen
haddii uu qof magac leh ama bulshada xoogaa laga dhex garanayo uu yimaadaan in horey kor laga keenayo waa qodob ha soo dhowaalee waxaa laga yaabaa inuu meega sidii kula wareego halka qofka iska aamusan ee bulshada aysan mataqaanaa garanayn laga yaabo inaan meega la siin marka sidee iyadoo dadkii magaca lahaa iyo dadkii aan magaca lahayn oo bulshada laakiinse fikradaha hayay caqliyadda u saaxiibka ahaayee laga yaabo inay naga aqoon badnaayeen meesha ay joogaan sidee si siman fikradaha loo wadaagi karaa meega loo wadaagi karaa dhalinyarada qaarkood ayagoon la garanayn kor in loo soo saaro see ku suurtoobi kartaa fikirkaasaan jeclaan lahaa 3 gabdhood iyo 3 wiil inay ka hadlaan oo ay bulshada gudbiyaan sababtoo ah dadka hoos taaganayna daawanaya waa dad xaq iyo xuquuq leh inay hadlaan xaq u leh inaan ilowno mar walba maaha وانا كبح يا دوما زكي بن حاجي اد ما تيهي كاس aniga raba inaan wax kaga darsado waan la qabaa fikirka uu dhahayo Zaki bin Haji waan soo dhaweynayaa ani ahaan aad baan ugu faraxsanahay inteena hadashay markii laga reebo dadka barnaamijka daadihinay walaal aan jeclaan lahaa Zakariya Farxan Diraac iyo Shaafiina inay qayb ka noqdaan daadihinta asmana sidoo kale way nagula jirtaa iyo bilan iyo asxaabta kale waxa kale ku darsanayaa anigana anoo la qaba kii Zaki bin Haji in dadka hadlay ay joojiyaan si dadka meeg u wada gaaro commentiga in qofka kale loo jawaabo oo hadalkiisa like tixraac lagu sameeyo in laga joojiyo dadka hoose maadaama dadka hoose ay iyaga laftirkooda u baahan yihiin inay fikirkooda cabiraan sidoo kale si barnaamijkaas noogu hirgalo waxaan u baahanahay qof kasta markii aan kor u soo qaadnaa anaa hadda ka shaqeynay kulli kor baan u soo qaadaya fadlan meesha moodka oo recording ku qorato inuu qofku mood ka galo uu dhageysto fikirkiisana qofku markuu qof kala hadlayo inuu aamusnaado uu shib ahaado hal qof barnaamijka daadinayo qofka saxaya marka laga reebo uu aamusnaado si barnaamijku noo qurux badnaado cadaaladna la sameeyo marka say taas ku dhacdo marka bilis ixtiraamka aan ilaalino dadkana kulli kor baan soo qaadana dadka nagii hadlayna hadal kuma noqon doonaan waana mahadsan علي waxay rasii ku socon علي aad baa mahadsan tahay dhamaan asxaabta meesha ku jirtana salaamaya horta qolka maanta oo dhan ma ku jiray waxa loo baahan yahay meesha dhibaatada jirta waxa weeyaan gacanta soo taag dhibaatada meesha jirta waxa weeye qolkan dad badan baa yimaada dad badan baa soo gala fikirro kala duwan mawduucyo kala shactirooyin kala duwan aan noo haya laakiin dhibaatada jirta waxa weeye qof aniga aan ka professionalsana ama ka khatarsanahay codka iska hagaajiyo codkaaga lama maqlo fadlan السلام عليكم waxaa moodaa cabdilaanto wiilkii hadalka watay inuu degay baan u malaynayaa ama aysan u suurtagelin inuu mataqaanaa hadalkiisa dhamaysto waxaan siin doonaa aniga fikirkayga inuu dib u dhiganayo bal waxaan markaan ka hadashiin doonaa walaalkay Shaafino oo isagana muddo noo aamusnaa wariyo Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aad qiimo ugu leh bal fikirkiisa inuu sida qaabkee bulshada hoos joogta ee naga wax garadsan ee naga cilmiga fiican ee laga yaabo in naga aqoon fiican yihiin naga fikrada fiican yihiin see kor ku imaan karaan oo ay fikirkooda u soo bandhigi karaan dadkii magaca lahaana markii fikirkoodii howl dhameystaan ay hoos u tegi karaan Shaafina siinaya waa ka bax waxaan qabaa qof walbo aragti dhiibta aragti fiican dhiibta uu dago dad yaroo maamulna kor ee noo saarnaadaan noo xiriiriyaan inteena kalena qofka markuu aragti dhiibta uu hoos dago dadka hoos joogana aynu soo saarno qofkii si aan fiicneen u hadlana aan iska saarno waxaan qiyaasayaa in dadka hoos joogana haddii kor lasoo saaro nidaam uu jiro wax walba ay orayd noqonayaan waa mahadsantihiin السلام عليكم زكي بن حاج برنامج كدادي زكي وأنا واحد بدرها زكي ما خلص أنا دواي هذا سولو ما سنت أنا واحد بدرها هرت قدر فعنا سوجي ذي شيء لكن اللي واحد إسكالي مر والبا سعره ضد كمركز قيبته كرة سعران
hadaaya waxaa dhacday in barnaamij groupkan ma ahayn group kaloo ahaay oo akhyaar ama asxaab kamid ah igu casuuntiin inaan imaado markaasaan su-aalo oo hal mawduucan ka wada hadlaynay markaas asxaabta adminka dad badan ahaayeen markaas qof adiga bulshada sidaa sheegto kale magac kule lasoo saaray isla qofkii moogtahay asna naftiisa magaca leedo duu siiriyo iska hadlay waxaa laga rabay inuu mood galo barnaamijka meesha socda dhageysto hadduu ka qayb qaadan karo ka qayb qaato haddii kalena uu dego macnaha inuu mawduuc ku soconaynin wuxuu sameeyey wuu hadlo mawduucii aan ka hadlayn wuu bedelay asaga baa hadlay dad badan oo ka daba sacbiin way jiraan marka mar walba dadka marka hoggaanka haayo orka eeda iskale in loo sheega tahay markii qofkii soo saaraan ay dhahaan ama magac lahaan meeshan waa la wada siman yahay oo dadkan way wada siman yihiin magacana ilaah baa ku yeelan birina waxaa boqolaal ka magac weyna hadda maanta la aqoonin marka ka admiga aan eeda saara ayagaan leeyahay marka qofka soo saaray ama magac lahaado ama dadka hoos joogo badanaan arkay dadka hoos jooga badanaa oo qabto la siiyo weliba dad aad u fiican codkoodana meel sare gaarayo aqoon ilaahay weliba iyo dadka hoos jooga badanaa indhaha hayaan laakiin dadka badanaa meesha joogo waxa waaye muhiimadan la siiyo marka waa mahadsan sigaad inuu kaga madina walaal thank you aad iyo aad waa mahadsan tahay mar youtuber qaali ama Soomaaliyeedna miisaanka kule dhankii gabdhahan bal fiirin doonaa maadaama xoogaa dhowr wiil ay hadleen farxaan diraac walaalkay oo martida barnaamijka noogu ah Bilaal Bulshaawi oo soo socda shacabka dhalinyarada hoos joogtan ayagana jaaniskan siin doonaa balse markaan gabdhihii aan garaacno gabdhaha raba inay hadlaan meega hay garaacaan gabdhaha meega hay garaacaan si aan gabdhaha u siiyo Leila garaacay منش كسر نجوش كسر السلام عليكم وعليكم السلام ولا الآدي بقوم بقلنا وحوم لنا بناء أنت لسه تلاقى فلانقانيو مسي وكو كرمرا وكو دول مرا إيه دول مر يوتيوبر قارية مش كجران آدي فرقي واحد ولا dhalinyarada Soomaaliyeed ee fikradda leh aqliyadda leh u saaxiibka ah laakiin aan magac lahayn waxay leeyihiin club house markii fikrad la keeno waxa moodaa dadka caanka ah ee la garanayay in xogaa dhabarka taabasho ay tahay isla markii kor la geenayo annaga hoos aan joogno waxba aan nagala weydiinin kor jaanis aan la siinayn dad naga aqoon badan inay hoos ku jiraan baa laga yaabaa dhalinyarada kale kor lagu casuumayo marka see u aragtaa see loo sinaan karaa oo fikirka la soo bandhigo kii caanka ah soo fikirkiisa la dhageystay oo la sharfay kii kalena loo dhageysan karaa loo sharfi karaa ما صمت وقف فرحان دراع يعني لو قبل بحال كما يقانو طبعا جربو كبحي وصل لابتي aad buu farafaraynaya yaa loo qaban ku socda نجوم فما قاي ما قشعوا ملينا يا وادي وتاجنتها الخير سو ويا نجوش إنه شو توين بالغير يعني إن السنة dadka aqoonta leh youtuber beeshadan waxay okay shir ma ku soo shirnaan gabadha u qoranta ها دمان وايد سلامي waxaan ku darsan lahaa aniga talada ku raaci lahaa ninka la dhaho wariyaha shafiinho dadka adminka haay inay dadka kala saaraan qofkii hadlo oo fikrad dhiibta in hoos loo dejiyo sidoo kale dadka markay soo galaan caanka ee aad loo marxabeenin oo inay ummadda la siman yihiin la tuso waa ka mahadsantihiin maxamed nin dhahaan oo suud gashan oo kursiga ku soo fadhiya labada gacmood mid kursiga saartay ba in badan ii garaacay bal ninkaas aan fikradiisa dhageysano ku soco walaal soo dhawow maxamed السلام عليكم محمد ابراهيم بابو قرصو الله يمقلي يا الله سلامي وكاخ waa ninka suudka gashan ee kursiga fadhiya oo deer hadlaya
فرحان دراع horta dhankiisa ha la siiyo farxaan dirac qofka barnaamijka daadiinaha loo daayo zaki ha loo daayo qofka la siinayo qof kale dad barnaamijka dib ka soo galay marka dadka barnaamijka dadka aniga soo dhaweynaya asxaabta biinka haysan waxaad igu dhaaftaan aniga dadka biinka idin siinaya hadda waxaan ku saaranahay biinka saar dhowr qofood marka qofkaas si gaar u salaamayso fiiri dhageyso hal mazakiyow waxaa kaloo ku darsataa qofkii qof uu taageero ama walaalkii ama saaxiibkii ama meeshan ku arko dadka ha ka soo dhex hadlin oo ha soo gebin hadalka waxaa samaysaa marka hadalka adiga uu ku soo gaaro qofka aad sida rabto gaarka inaad u salaamto inuu si gaar u salaamo ana saasaan zaki bin xaaji ku darsanaya igana raali noqo aan laftakayga hala idejiyo hoos hala igeeyo hadda zaki bin xaaji anigu ay dejin kartaa cali dhaanto oo maxaa lagaa dejinaya hoos lagu geynaya hadba muran noo furinayna barnaamijka inoo wada asxaabay waxaan idinka codsan lahaa annagoo intaasoo qofa oo isugu nimid meesha in mataqaana nidaamkeena mar walba ilaashamo oo wax iska kala faa'iidno oo wax isweydiino idinkoo anshax barnaamijka noo ilaalinayo salaamaha haddii noqoto barnaamijka salaamaha oo gabagabada barnaamijkan qabsan karnaa qof walba qofka uu salaami karaa walaak waa tagaanay waa la qadro ya وعليكم السلام عليكم جماعة يلا يا مسلمين وحقف أيديسنا يا هذا البرنامج سجل من التعبان وكل سلام يا أسعد يا ناس دقيقتو وعكروا دول أنا صاحب علي صاحب عبد الناصر سلام يا منور كذا كله ألا اللي ما تيجي سلام يا الله اللي هو سمتر قفت المهم الله كويس ثاني يعني مش مجرد Soomaalideena caqabadan haysta Qadar maxay leedahay nidaamka ma ilaali karno qofkaas hal suud xaga wareeda wiilasha ixtiraam oo dadka ixtiraam oo ilaahay ka xishoodo si wanaagsan u hadla oo mid wada galo fadlan nidaam aan ismaqalno isna ixtiraamno zaki bin xaaji cabdidaanto waxaan rabaa marwan inay ka shaqeeyaan dadka in nidaamka la dejiyo oo hadhowta qofka dooda qaba bas la soo saaro okay waayahay marwan waxaan ka codsan lahaa qofkii dambe ee dhaqdhaqaaq sameeyo si sharci darro ah in la saaro oo hoos la geeya codsan lahaa doodan inaysan noqon dood micno darro ah oo waqti badan naga baxo waxaan u baahanaa 2 ajando qofkina inuu barnaamijka ka qayb qaato dadkuna uu follow gareeyo isna la follow gareeyo soo dhawaad zaki bin xaaji ku socdaas aad baa u mahadsantihiin dhalinyaro kulligiin waxaad hadlaysaan fikirkiina aad mataqaanaa muujinaysaan waxa hadda aan meeshaan ka falanqeynna waxay tahay dhalinyarada magaca ummadda Soomaaliyeed kule iyo dhalinyarada aan waxgaradka laagsa aan magaca lahayn sidii u sinaan karaan oo wax isku weydaarin karaan marka haddii qof intuu meesha soo galo oo iska hadlo xogaa ixtiraam darro ay noqonaysaa annagoo idin sharfeeno oo rabna inaan kor keenno haddana markii kor la idin keenay haddii aad buuqi qeyle kusoo gashaan xogaa waa laga wanaagsan yahay inaad waqtina siisaan noo sabartaan qof walba السلام عليكم سكي ونيجا أحد الكاد بدأ قاعدنا يا استلوص نكرة وحوي أو ضد كعان كان كل الله صار يوم السببين يا سوق تقف عن كامل الله على قرنا يده وحق لا دم الله هذه تسعو نمعه وكل صعود أواقرتي كل ما صوب لهم الله ينيا فكرة وناكسين بيودي قبر عكري هاد ونوصل على دونتا ميجا وإيه قراعي كرتان عبد الرحيم بميجا قراعي عبد الرحيم بولوغا السودو أدينا فكرة هذا waad mahadsan tahay dhammaan waa salaamayaa ragga iyo weliba gabdhaha sharafta leh halkan ku jira qodobka laga hadlaya ah dadka caanka ah iyo dadka kale aan caanka ahayn inay u sinaadaan halkan way u sinaan karaan dadka maamulka haya ee qolka waxay eegi karaan qof walba oo qolka kusoo biiraya inuu yahay qof macquula iyo way kala fahmi karaan waayo qofka macquulka sawirkiisa saxda u saaran xataa hadduu buuq sameeyo waa la saari karaa in saas lagu qiimeeyo qof walba oo aragti haya ama markaa gacanta soo taagtana in la qiimeeyo oo aan loo fiirin macnaha qofkan qof la garanayo ma yahay ama qof aan la aqoon taasaan codsan lahaa hadalkii gabadha yaan hadda tixraacaya ahaa sidee lagu qofka caanka meel loo tixraacu leeyahay qofka caanka ah waa sax waa la garanaa haddii qofkan kale aan caanka ahayn laftirkiisa uu sawirkiisa saxda iyo magaciisa saxda meesha uu kusoo qortay waa la dareemi karaa inuu yahay qof markaa aan wax dhibaato aan wadan waa mahadsantihiin
waxa ii garaacaysa meega waxaan siin doonaa leylo oo meega ii garaacayso leylo xildhibaanka ay u xigi doonaan dhalinyarada dhammaan codku way heli doonaan muhiimaddu waxay tahay inaan fikrad ka helno dadka magaca kule ummadda soomaaliyeed iyagoo la sharfayo oo la karaameynayo oo fikirkooda la tixgelinayo haddana seebaan loo caburin karin ama aan loo aamusin karin dadka aan magaca lahayn laakiin wax garadka ah leylo ku soco leylo may maqashaa okay waxaa laga yaabaa inuu kool soo galay xildhibaanka meega cabaar ii garaacay xildhibaan may maqashaa waayahay waxaan rabnaa marwan inuu zaki waa mahadsan tahay marwan inuu nagala shaqeeyo dadku mala kontroli karo insaan waaye bini aadam waaye waxaan rabnaa in dadku hal loo soo saaro kadib qof walbo aragtidiisa fikirkiisa markuu si xorre ah oo nidaam u fadhi u dhibto inuu markaas dego si buuq usan noogu sii badan marka zaki aad iyo aad 100% waa ila socotaa thank you very much adna soo dhawow maxay kula tahay waayahay hal qofkii hadlayaan soo saaraynaa fikirkiisu gudbinayaa kadibna wuxuu u banaynayaa qofka kale oo meesha si haddii labaatan qof aan meesha kusoo fuulan dad waxaa jira iska soo dhexgelaya ixtiraam aan muujinayn waa fikrad wanaagsan aad iyo aad waa saxan tahay guulayso guuladal adna hadda aan fursad siino aad baa umahadsan tahay adna may maqashaa halow adna waayahay marwan ka dalban lahaa aan dejiyo hal mar aan ka dhex galo zaki bin xaaji dad waxaa jira aniga aan kor soo saaray marka fadlan yaan la dejin ku soco waa mahadsan tahay cabdidhaanto waxaan rabnaa qofka daqiiqadaan ahaayo dad kale meesha soo gala in fursad loo siiyo oo qof walba uu hadlo waqtigana la beeqaamiyo marka qofkii ciyo hadli waayo admins waxay ka dhiganta qofkas inuu mashquul yahay marka mikrofoonka waa laga wareejin doonaa saalax soo dhawow injineeri waan dhowahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waa idin salaamaya walaal ma la socotay arrinkii laga wada hadlayay mise gadaal ba hadda barnaamijka la soo qabsatay zaki bin zaki saaxib haddaan gadaal ka soo qabsaday barnaamijka waa ka dhacay walaalkaygiyo waqtiga ugu yar aan kugu dulmaro waxaa la isku hayay club house dhalinyaradii caqliyadda u saaxiibka ah ee waxgaradka ah ee wax bartay waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin qol walba markaan nimaano annagoo hoos fadhinaa waxaa laga yaabaa qof bulshada soomaaliyeed ee laga dhex yaqaano inuu soo galo kadibna kor la geeyo oo hadalka la siiyo oo uusan waxba ka hadlin annagiina waxba aana la weydiin fikrada ay nagu jiraan sidee marka ku suurtoobaysaa in ay wada sinaadaan iyadoo dadkii caanka ahana aan loo gafin oo la sharfayo la qadarinayo kuwii kale oo bulshada soomaaliyeed ka mid ahaayo waxgaradka ahaa laakiin aan caanka ahayn in fikradooda la dhegeysto sidee ku suurtoobaysaa aad iyo aad baa umahadsan tahay mahadsan yahay zaki wuu baxay waxaan rajeynayaa mawduuca si kooban zaki dadka daan dul maro dadka caanka waay ahmiyad gooniya loo siinaa oo ku wax bartay aqoonyahanka ah laakiin magac aan lahayn cilmiga aqoonta leh fursad loo siin layahay dood muhiim ah waaye oo meeshaan hadda ahmiyad gooniya u leh marka waxaan jeclaa inaan markaa soo dhaweeyo faysal soo dhawow aragtidaas maxay kula tahay qodob waya faysal waa ka gudbaynaa waxaan siinaa markaan qaalid oo meega u furan yahay qaalid soo dhawow maxay kula tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد بعدين سلام يا أصحاب كلكم وعلى ونكسن. وانك خالد خالد هذه تصور. وريا هلا شكل سنين هو تسكت بنا حاجة هلا شكل سنين كلنا هلا شكل سنين ورما شرط وكعصبة. وياهي وكحنا قالت إنه صلاة كان فرصة سين دونا قفل بو وهل كان سبيس كان وقت وساحده waxaana dalban lahayn qof walba inuu dooda hore u guda galo oo uusan asna waqti iska lumin dadka kale ka dambeeyana uu fursad u siiyo si waqtiga aan haysan aan u beeqaamino marka la ciwaanka dooda aan ku celino dadka caanka ah waay ama sabab ahmiyad gooni loogu siinaa club house dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay wax barteen balse magaca bulshada aan ku dhaxlay iyo dabciga wanaagsanaa insaan lagu talagalay lehne loo buusaa waxaan siinaa markaan oo fursad u heshay hibaaq soo dhawow bal maxay kula tahay aragtidaas caaw miiska noo saaran
waayahay halow hibaaq waa hibaaq ku gudbaynaa waa ka xunnaa hibaaq waa meega ka hadlaysan waxaan siinaa shirhan ayaan siinaa shirhan haddaan nala socoto qodobka dooda maxay kula tahay aragtidaas iga wareeji abow ma la socon hadda soo koray waayahay waa mahadsan tahay fartuun ayaan siinayaa fartuun soo dhawow dhaxyaray waan dhawaa walaal macaan waayahay aragtida qodobka dooda ala socotay waan ismaa sidaas dhammaan waan leedahay islaam walaalayaal